golaha wasiirada ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa maanta fadhi wadajir oo ay yeesheen waxay ku soo saareen qaraar ay ku sheegeen inay dowladda federaalka Itoobiya ku amrayaan inay xidho qunsuliyadaha iyo xafiisyada ay ku leedahay magaalooyinka Hargeysa iyo Garowe. wasiiru dowlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha Xirsi Gaani oo khadka telefoonka kala hadlay kadib markii uu isagu ahaa ninka breska ama qoraalkaasi soo saaray ayaa ugu horreyn waxaan weydiiyey bal go'aanka ay soo saareen ee arrinkaasi ay dowladda federaalka ay ku amrayaan inuu faahfaahin naga siiyo. dabcan go'aanku wuxuu ka soo baxay waa qaraar golo wasiiro oo uu shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. qaraarkaas oo lagu go'aamiyey kadib markii la fiirshay qodobo badan oo xadgudub ku ah qarannimada Soomaaliya. go'aankaas waxaa lagu iyo axdiga Vienna adduunka xiriirka diblomaasiyadda lagu dhaqmo qodobadiisa kala duwan. golaha wasiiradu wuxuu qaraarkaas dabcan ku gaaray maantay bishu ay ahayd 4 bishii afraad ayadoo markaa lagu xirayay maaragtay shaqadan looga joojinayay diblomaasiyadda ka shaqeeya gobollada dalka ay ka mid yihiin Garowe iyo Hargeysa. diblomaasiyadda meesha ka shaqeynayana lagu amrayo in muddo isbuuc gudaheeda ay waddanka uga baxaan. marka muqdisho miyaanay joogin horta oo inay safaarad ku lahayn iyadana? muqdisho safaarad baa joogta. dabcan waxaan ku yiraahdaa safaaradda baa joogta qunsuliyadaha baan ka hadlaynaa ma ogi safaaradda kama aan hadlayno hadda. maxaad ku diideen kuwa gobolada jooga ee Itoobiya soo dirsatay kuwa muqdisho joogana aad raalli ugu tihiin markaa? raalli ahaansho maaha. dabcan diblomaasiyaddu hal mar go'aan lama wada qaato, heerar bay leedahay iyo tilaabooyin la qaado. taas ayaa maaragtay aan ku salaynay go'aanka. marka go'aankiina muxuu oranayaa bal hadda noo sheeg waa horaba inay madax banaani qaadatay oo hawlaheeda gaar u wadato markaa safaarad qunsuliyadda Itoobiya ku taala ma idinka u ogolaaday mise xiriir iyaga dhexmaray bay ku joogtay? qunsuliyad kasta oo hadda waddanka ka shaqeynaysa dowladda federaalka ah iyo wasaaradda arrimaha dibadda oo dowladda federaalka matalaysa ayay ku joogaan ogolaanshahooda. maxaa markaa isbedelay haddii ogolaanshihiina markii hore ku joogeen? waxaa isbedelay xadgudubyo iyo shaqadii loo igmaday shaqooyin badan oo ka mid ah oo ay maaragtay faraha kula jiraan ayaa ognahay. waxaad og tahay heshiisyada badda oo maaragtay badda Soomaaliya lagu siiyay Itoobiya cidda facilitate gareynaysay oo ka shaqeynaysay oo faraha kula jirtay in ayaga ahaayeen digdiyo badan oo horena waanu ka bixin. haddii Itoobiya faragelin idinku hayso safiirkeegiina muqdisho idin fadhiyo Hargeysa ka jooga iyo ka Garowe inaad eridaan inaad diidan tihiin Somaliland iyo Puntland miyaanay ahayn Itoobiya idaan ishaynba? ma ahan Itoobiya maaragtay safiirkan laftigiisa halkan qaraarka waxaa ka mid ah inuu dowladdiisii la tashi ugu tago. dabcan diblomaasiyaddu heerarka jira heerarka ay martay ayuuna mari doonaa. taas sideeda ay u sii jiraan maxaa yeelaysaan? waxay noqonayaan mas-uuliyado si sharci darro ah ku jooga waddan xor ah oo Soomaaliya la yidhaahdo. marka idinka laftigiinu inaad dhinaciina xiriirka xumaynaysaan Itoobiya maanay u eekaynin?